بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسيركي جزء عما أيام كسوة جرني بشهر رمضان وتلقلي ودرسي أفراد سورة التكوير أما سورة إذا الشمس كورت أيو كبل الله يا درسي iyada iyo suuratul infitar oo ku xigta ayaan darsigan insha Allah taala qaadan doonaa labadan suuradoodba waxay ka mid yihiin suuradaha aad u sifeeyay ama tilmaan iyo tafaasiil ka bixiyay qiyaamadu markay dhacayso isbedelada kownka ku dhici doona ayay wax ka tilmaameen بل نبينا وحكسه صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت أحمد الترمذي صوصاري وحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم روحي أي فرح قليل يسو شعل ومعناها inuu fiiriyo maalinka qiyaamada ah sidii isagoo ishiisu hayso kale ha akhribu nabi sallallahu alayhi wasallam suuradan hadaan dul joogno ida shamsu kuwirat suurada ka dambaysa ida samaa'un shaqqat iyo hadhiila suurada ka dambaysa ida samaa'un fatarat iyo suurada kasii dambaysa suuratul inshiqaq wa ida samaa'un shaqqat كل سورة هاسي وحي سفينيان جانب كمدا اسبدلدا إيمانيا markay qiyaamadu dhacdo waxa kale kamid yihiin suuradaha si gooniya nabiga u taaban jiray sallallahu alayhi wasallam oo cabsida badan gelin jiray oo cirada ka soo saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam ay kamid tahay sida Abdullah ibn Abbas laga warinayo Abu Bakar baa wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ya rasuulallah qad shibta رسولك إلى وادع الرودي مركز النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت سورة الرهيب النبي صلى الله عليه وسلم الرضا يقصه صاري حديث كان الترمذي بصو صاري سنة وحديث صحيح هو مركز وحي كم تهي سورة النبي صلى الله عليه وسلم الرضي سسود الدجيي أي سورة دني كم تهاي سيدو كلا وحي كم تهاي سورة ده سيدا آد كأوصفين يا قيامة ده يسيء العيسو إيه إسبدل هذا كون ككل عيا أما كون كان هوسة أما كون كسرة وسورة مكية مركز سورة التكوير وحاسوغن في صحيح مسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح كنت كذين ويسوغن تهاي وسورة مركز مكية waxay soo degtay marxaladii hore nabiga sallallahu alayhi wasallam uu san Makka ka soo hijroonin ayay soo degtay suuradu marka waxay ku bilaabanaysaa san sheegnayba qaybaheeda hore waxay ka hadlaysaa isbedeladaas kownka ku dhacay markay qiyaamadu timaado muxuu ahay kadibna waxa laga hadli doonaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hadli doonaa wuxuu ku dhaaran doonaa makhluuqaadkiisa qaar kamid ah shayga lagu dhaaranayo ujeedaduna iyadoo ay tahay muxuu ahay quraanka kariimka ah iyo sida Ilaahay u soo dajiyay ayaa laga hadli doonaa isaga iyo labadii loo soo dhiibay malakul jibriil oo la taskiyeeyo nabi maxamed oo uu keenay oo isaguna ummadda u soo gudbay isagana la taskiyeeyo iyo gaaladan wax ku qaadan la Allah wuxuu yiri marka tabaaraka wa tacaala ida shamsu kuwirat إذا قرتي الشمس قرحدي كورت للضوبة ليسو كانوا انت الله أروريو يضو دنب للضوبة سيدة عمامة للضوبة وكالي يعني قيامة مركي تمادو وحي دافع يسمتشرو ثقلت في السماوات والأرض ويعيد والبويكو علسته مركي قرحدا نظر كيسان والضوبة صحيح البخاري يكسو أنت من حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة قرحدا يضيع حبل لبضو مالنت قيامة ولا دوبيا يعني انت اللي سوق يدنب اللي سوق جبينيا اللي سوق أرورينيا ومعنى سيدا عمام الله دوبيا وكالي ساسا اللي سوق أرورينيا
hadda qoraxdu way fidsan tahay taqriiban oo way weyn tahay laakiin maalinkaas iftiinkeeduna waa tagaya iyadoo dhanna waa la isku ururinaya wayda goortii an-nujumu xidigihiina in kadarat ay daataan samada xidigaheeduna way soo daadanayaan طبعا iftiinkana way waayayaan waxay la mid tahay oo kale ayada kale alla yiri waydal kawaakibu intatharat yani waa soo daadasho way meeshooday ka soo daadanayaan ayadana xidigihii oo isbedelay way wayda goortii aljibalu buurihi suyirat la socodsiyo buurahan dhulka haya ee u diidan inuu dhulku uu liico ama dheeliyo iyagana waa la socodsiinayaa طبعا markii la socodsiyo kadibna waa la burburinaya waa la riiqaya kadibna waa la bitinaya waa la saydaya kadibna sidaas ay ku tagayaan oo ku baabaayaan wayda goortii al-isharu halihi toban sidka ahaa udilat la baylihiyo ama la dayaco ishaarta waxa la yiraahdaa waa jamcu shara waxa la yiraahdaa hasha geela marka ay bisha tobnaad sido oo ay riman tahay oo ilmihii ay bisha tobnaad ay gasho iyadoo riman ayaa la yiraahdaa ushara marka geelu wuxuu ku dhalaa 12 bilood hashu markay soo gaadho bisha tobnaad macnaha sidkeedii baa dhawaaday inay dhashaa dhawaatay waa xilliga xoolaha loogu jecel yahay waay xoolaha ay carabtu dhaqan jireen geela loogu jeclaa geela waa la sii kala jecel yahay neefku markuu riman yahay baa la sii jecel yahay haddana neefka markuu dhalmadiisu soo dhawaato oo uu gaadho bilaha dambe uu gaadhay ugu sii jecel yihiin xoolihii marka ay adduunkaba ugu jeclaayeen ayaa marka waxay noqonayaan cudilad waa la baylihinaya waa la dayacnina ma raacayo waa laga kala cararaya oo adduunka markii la joogo wixii nafta la isaga qaadayo lagu mitidayo loogu jeclaa yaa maalinka nina raacanaynin oo nina ilaashanaynin oo laga kala cararaya duurkaasi loo sii daynay hawlka iyo dhibaatada jirta daraadeed wayda goortii al-wuxuushu duur joogti nafleydii duurka ku nooleydna xushirad la soo ururiyo la isu keeno la soo kulmiyo waxa weeyaan waa xayawaanaadka duur joogta nafleydaasi duurka ku nool ba iyagana la soo shirinaya la isu keenaya saas way macna ثم إلى ربهم يحشرون سورة الأنعام وكإلهي كشيء ولا صور رنا يجنا ولا سكين مرجي اللي سكينه حيوانات كاسي والله كلا جرقادية والله كلا قصاصية ليبكي أي سوق يستين بالله كلا قصاصية سيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى حشي جيس كلا هيد وحنو كذا ريدي جيس كلا هيد مدي سيدة أهيدن جيس كلا هين أي هردي وجيس كذا اللي بيجوا جيسته إلى الله قصاص markii loo kala qisaaso ayuu marka Allah tabaaraka wa tacaala si ugu talinaya marka waxaan xayawaanaadka iyo noolaha duurka joogo dhan la soo ururinaa wala soo keenay iyagana maalinka iyada hadda isuma iman karaan duurkaasi ku kala firisan yihiin way iscunahayaan way is-eryanahayaan laakiin maalinka wala soo keenay meel bay isugu imaanayaan macna طيب wayda goortii al-bihaaru badihina sujirat lahuriyo badahan hadda biyaha dhanaana iyaga dad dab bay isu bedelayaan ama sujirad la buuxiyo badahani intay buuxsamaan bay meelaha ay biyuhu ku jiraan bay ka soo gudbayaan oo bariga u soo gudbayaan bidihii way buuxsamayaan sujirada wal bahri al masjur wa ama waa la hurinoo dab bay isu bedelayaan ama waxa laga wadaa waa la buuxinayaa oo buux tan dhaaf ah ayaa ku imaanaya wayda goortii an-nufusu nafafyaalki زوجت ليسكو لمانيو يعني وحوي اللي يسرح راعيو ووحا لغا ودا نف والبا عدي اي اسكو عقيده يي اسكو عمل اهايين يا لا اسراعينيا يو كوخ با لا اسكو لمانينيا انتي حميد ولا اسراعين انتي wanaagsaneedna wala israacin munaafiqiintii gaaladii kuwii si madaxadka kuwii kibraaniyiinta ahaa cid walba cidii ku camal ahayd baa lagu lamaaninaya wayda nufuusu zuwijat saasa la soo raacinaya طيب waxay la mid tahay oo kale ayada Allah yiri tabaaraka wa taala uhshuru alladheena zalamu wa azwajahum soo kulmiya kuwii dulmiga sameeyay iyo kuwii la midka ah isku camalka ahaayeen طيب
وإذا قرتي الموؤودة نفتي لحبال نولولي ويضو نول آسي سئلت لويديو بحال ويدينا يا بأي ذنبك سببتي أيا قتلت لو دلي ذنبي كيسيبا نفتا سببتي سلو دلي إيدا لو ويدينا الموؤودة وحا لغا ودا gabdhaha yaryarka ah markay dhalaan carabtu gabdhaha in cibaayeen oo waxay yiraahdaan dagaalna wax kama taraan bay dhihi jireen muxuu ahaayay ceebna way la yimaadaan sidaas daraadeed bay ka han jireen marmarka qaar koodna waxay u ka han jireen quudkooda iyo masruufkooda dhankaas ka han jireen marka gabdhaha in cibaayeen gabdhaha marka ninka marka gabar loogu bisaareeyo waa ka quraanku sheegay oo wajigaaba madoobaanayaba markaas uu leeyahay macaradaad ku duugtaa ceeb xageed ka gasha marka waxa weey gabdha nacaybka meeshaas laga keenay Soomaalida xataa qaar gabdhaha nacayb marka gabdhihii nacaybkay nacabayeen ba markay dhalato iyadoo yar oo noolba intay xabaal u qodaan bay aasayaan oo carrada ku rogi jireen marka jaraa'imtoodii bay kamid ahay dambiyadii waaweyn ay gali jireen markii aakhira la taga marka Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu keenayaa gabadhii yarayd ee la aasay iyadoo nool la aasay markaasa kii aasay hortiisa lagu weydiinaya waxa la leeyahay naftanay maxaa lagu dilay dambigaad gashay muxuu ahaa ayada waxa loo weydiinayaa kii dilay oo meesha taagan baa lagu xumeynaya ku qus qaadanaya laana madluumadii la dulmiyay hadii su'aal loo jeediyay daalimkii waa ka sii xaq jira marka waxa weeye yaani si muxuu ahay dadban ba isagii loo cabsiinaya way macna وإذا الموؤودة إذا قرتي الموؤودة تي حبال نولولي يضو نول حبالي ولا آسي سئلت لويديو بأي ذنب كيسه سببتي أيا قتل اللودلي ذنبي جيبها سببتي سلودلي محي قشي محي ذنبي سميسي محي كم مضتي إن لا آسو يعني محاد كم مضتا لليه كي سميبها مركب ميش تاغن ومعناها وحوي لا دور حليه طيب نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسوغا إن لو ويديي مسألة عزلقة كما في صحيح مسلم يعني وحوي نينكا حاسكي سمركو او قلمونيو إنو بيها بنانكا كوداديو سيينا او أوريسانين هذا قلب كلا يميد او أوركا لغا إلاليو دومركا marka arinta in islaanta uurka laga ilaaliyo ayaa nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam markaas amar nabigu wuxuu yiri dalika alwa'd alkhafi wa habal nololin qarsoon buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa asid qarsoon markaasuu wuxuu yiri wahiya idha almaw'udatu su'ilat marka waxa meesha ka muuqda nafta bini aadamka inay uur gashana in la dagaalamo allahumma inay sabab sharci keento in la ogoleen hadday uur gashana bil ijmaac in la soo ridi kareynin allahumma xaalad khaasa oo iyadoo loo baqay wax la mid ah booyaan tayib hadii kale waxay noqonaysaa ilmihii la aasay oo kale ayuu nabigu kala mid dhigay sallallahu alayhi wasallam وإذا قرتي الصحف وراقه أعماش بني آدم كو قرنايا وديوان كي لغا سو دياريه نشرت لفيديو بمعنى دواوينتي iyo faylashi laga soo diyaariyay dadka ayaa la furaya la fidinaya kadibna gacanta looga dhiibaya midigta laga siiyo iyo bidixda laga siiyo nushirat marka la fidiyo way oo yaani wax way la faydo وإذا قرتي السماء سمدي كشطت للديره أما لما قار سيبو يعني وحو كشطك وحل إلى هذا مقارك أما الشيء وحو كل حجر ولا قد حساره مركا يعني وحا ديريد سمدو مراحل بمرة سالفت هذا مركا قيامه دعضو مركا وحلقة وذا بإليهن ميدب كذا أيا للديرية كدي بنا ميدب كليكوسو بحي سايو فكانت وردة كالدهان يعني وحي أنه قونيسا أو كله وبح أو كله أو أدمود سيدا هرق لما جدي أو كله أي مركا أو كانيسا مركا ولا هرق سيبيا أما ولا ديريا وحالات أيضا الصمود كود عايزو إسبدل كود عايوي معنا وإذا قرتي الجحيم نار جحيمنا سعرت لهوريو نارتي نسي هورله
ayaa loo karkarinaya loo hurinaya waidaa goortii aljannatu jannadiina uslifat la soo dhaweeyo وأزلفت الجنة للمتقين dadka ilaahay ka baqaa loo soo dhaweynaya jannadiina intaasi markay dhacdo calimat marka waa ogaatay jawaabtii wata idaayada isdaba yaala ida inta haday dhacdo intaasi dhacdo heeba taagan aaway jawaabtii calimad ogaatay marka nafsun nafi way ogaatay ma shayga ahdarat ay soo xaadirsatay nafi waxay samaysay iyo waxay keensatay marka gacantay ku haysaa ilaan marar fara badan aadamuhu wuxuu sameeyay marka uu sameeyay wax yar haduu ka soo wareego waa halmaamayba marka wixii aad halmaantay iyo waxa la timid isagoo qoran oo waqtigiisii iyo saacadihiisii iyo sidaad u sameysay kulli wada diyaara naf walba waa ogaatay way hortaala marka sidaas way macna meel fara badan baa quraanku macnaha ku tilmaamay yaani markaasi xaqaa'iq fara badan baa ruuxa la hor keenaya oo wuxuu sameeyay oo dhan macna tan soo socod soo suurad soo socda waxayna dhihi doontaa naftu waxay hormartay waxay dambaysiisatayba waa ka waa la hor keenaya macna fala uqsimu bil khunnas marka isbedeladaasi koonkay ku dhacayaan qoraxdii samadii dayxi daruurihi makhluuqaadka koro dhan isbedel baa ku dhacay dhulkii iyo iyadana makhluuqaadkii hoosta joogayna iyagana isbedel baa ku dhacay waxa soo dhan isbedelka iimaanaya waa xaqaa'iq quraanka inooga warramay way calimat way ogaatay nafsuna fi marka naf kasta waa ma ahdarat waxay soo xaadirsatay ama ay shaqaysatay samaysay marka way ogaatay way macna فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إلهي وحكو دارن قرآن كان يسيدو كيمد يا كيني إيو سيدو إنو سو غاري إلهي باكا الله تبارك وتعالى ودارنا يا بركة دار با لغا هرمرينيا فلا أقسم وان دارن بو الله تبارك وتعالى بالخنس بان كو دارنيا خدغيه لبديي الجواري سعني الكنس قد قلي دعي والليل هبينكي بان كدارت إذا قرتي عسعسا ودبجيديو يعني وصير دمانا يوصي صعدو والصبح صبحي بان كدارتي إذا قرتي تنفسا ونفسدو او سو افتيمو افتينكيسو صبحو او سو نفسدو intaasaan ku dhaartay innahu isagu waa quraanki innahu quraanku la qawlu rasuulin rasuul hadalkii way rasuulkaasoo kariimin wanaagsan oo qiimo iyo maamuus mudan bahiyul manzar abuurka ilaahay suu abuuray qurux badan rasuulkaasoo dii quwwatin awood u saaxiiba yani quwwatul ilmi wal hifdhi wal khalqi waay abuurkiisa iyo cilmigiisa iyo xifdigiisuba ku xoog badan waay di quwwatin awood u saaxiiba waxay la mid tahay allamahu shadiidul quwa rasuulkaasoo cinda dil arshi allaha arshiga u saaxiibka agtiisa ahaaday ilaahay agtiisa ka dhow laan ilaahay waa arshiga ka sareeyay rasuulkana ilaahay buu ka agdhow yahay rasuulkaasoo makiinin la darajeeyay aduu makaana waay yani darajo u saaxiiba oo qiimo iyo sharaf badan u saaxiiba rasuulkaasoo mutaacin la ateecay thumma halka lagu ateeco xagee kor waay meesha sare ayaa lagaga amar qaataa oo lagaga dambeeyaa oo warkiisa la yeelaa oo malaa'ikta kale ayaa ku adeecda amarkiisa la yeelaa waay rasuulkaasoo aamin yani la aaminay oo ilaahay agtiisa mid ilaahay hadalkiisa uu ku aaminay fariintiisa ku aaminay asraar lagu aaminay way طيب wama saahibukum bimajnun inta waxa lagaga soo hadlay quraankan kariimka ah yaa ilaahay ka keenay yuu ilaahay u soo dhiibay ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa si uu xaqiiqada u muujiyo kuwa quraanka ka shakisanna يعني وحويان ليسكو داي ان لا شك بخيو الهي وا دارتي تبارك وتعالى وحو ku dhaaranaya daruura waxaan u sheedaa xidigu saddex marxalay leeyahay marxalad waa marxalad ay qarsoon yihiin oo soo baxayaan
oo dhanka bari ay ka soo baxayaan waa khunnas markaa laana khanaska waxa la yiraahdaa shay muuqday oo ka qarsoomay baa la yiraahdaa saas daradeed baa shaytaanka waxa loo yiri khannaas loo yiri khannaas waxa loo yiri markuu adoonku ilaahay xuso uu dhuumanaya waa gabanaya waa tagaya marka xidiguhu marka hore soo baxayaan waxay ku soo baxayaan qarsoodi iyagoo qarsoonaa bay soo baxayaan markay soo baxaana waa jawaari oo way soconayaan korkeeniya samaday soconayaan aljawaari way markaa alkunnasina waxa laga wadaa waa markay god galaan oo ay inaga qarsoomaanoo inagoo arkaynay ay muxuu ahay libdhaan ayaa la yiraahdaa marka saddexdii marxalayda ila xidiguhu lahay maray soo noqonayaan oo ay khunnas yihiin rawaajic kuwa soo noqonaya ama kuwa maxay qarsoon oo soo baxaya iyo maray socdaan iyo maray inaga qarsoomeen oo dhaceen saddexdaasba way leeyihiin sifoodkoodu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala mar labaad wuxuu ku dhaartay habeenkii idaa cascasa kelimada cascasa la yiraahdo daba jeedinna waa la yiraahdaa soo qaabilidna waa la yiraahdaa waa kalimatul adad baa la yiraahdaa laba macno iska soo horjeeda labadaba loo isticmaalaa laakiin halkan way isku khilaafeen sida fiicanna wax way in la yiraahdo idaa cascasa idaa adbara markuu habeenku daba jeediyo oo uu sii socdo oo waxay la mid tahay marka aayadda kale alla yiri wal layli id adbara was-subhi idaa asfar habeenku markuu daba jeediyo ku dhaartay waaguna soo iftiimo tanoo kale la mid tahay marka sidaas way macnaha was-subhi idaa tanafaska waxa la yiraahdaa kana waxad moodaa inuu cabursanaa oo hal mar neefsaday iftiinkii maalinta macnaha wuxuu u muuqdaa sidii wax soo neefsaday oo kale marka subaxda neefsatay iftiinkeedu soo baxay iyo habeenkii oo daba jeediyo sii socdo mugdigiisii sii socda ayaan ku dhaartay buu Rabbi tabaaraka wa tacaala marka iyada lafteedu waa isbedel cajiib waa makhluuqaad cajiiba waay markaad u fiirsato yani xidigahan dariiqooda ku socda ee mar xagga ka soo baxaya ee soconaya ee haddana qarsoomaya ee haddana majrahoodii iyo tubtii ilaahay ugu talagalay falagooda ku socda waa cajaa'ib habeenkan sii socda ee sii daba jeediyay iyo iftiinkan xagga naga soo galay daba guuraya madowgii oo sii socda mugdigii iyo iftiinkii oo daba socda xilliga ay isbedelayaan iyadana wax weeye waa xaalad cajiib ah oo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa muujinaysa waay labadaas ilaahay arimahaas ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala arinta lagu dhaaranay waxa weeye in uu yahay quraankani rasuul sharaf leh hadalkii waay rasuulka hadda halkan laga hadlayo ee sifaadka qiimaha badan leh ilaahay taskiyay saa u amaanay waa malakul jibriil quraanku waa hadalkii jibriil baa la yiri marka leeto waxa la yiri quraankan waa hadalkii nabi maxamed innahu laqawlu rasuulin kariimin wama huwa biqawli shaa'irin qalilan ma tu'minuun markaana nabiga loo tiiriyay waa hadalkii rasuulkii bani aadamka ah markaas halkanna waa rasuulkii malaga ahaa labadoodu waa laba rasuul hadalkan quraankana labadoodaba waa loo tiiriyay maxaa loogu tiiriyay marna quraanka ilaahay isaga isu tiiriyo waa hadalkaygii buu yiri marka say isu waafaqaysaa waxay isu waafaqaysaa quraanku waa hadalka ilaahay rasmi ahaan waa sida jibriil waxa loogu tiiriyay laana waa gaarsiiyay nabi maxamedna waxa loogu tiirsiyay laana waa gaarsiiyay jibriil nabi maxamed uu soo gaarsiiyay nabi maxamedna khalqiga adoomadu soo gaarsiiyay marka hadalka aad soo qaaday oo adigu dadka soo gaarsiisay adiga waa lagu tiirin karaa xagee dhankee inaad muballiq tahay gaarsiiye dhankeed ama quraanka asalkiisa yani wax weey waa hadal ilaahay tabaaraka wa tacaala saas weey فلا أقسم وأن دارنا يا مركب ملك جبريل بعد الله أماني وإلهي بعد التسكيي يعني صفات أدو عجب ذنبه إلهي سيه تبارك وتعالى فلا أقسم وأن دارنا يا بالخنس حدقيه يعني صون قني أما حدقيه لبدي أو يقول لبرسان أو قرصان مركزي كسون قني ماشي ودي وصبحي أيام كدرت الجواري سعني هبينك الكنس هدنا يعني قد قلي kunnaska waa meesha uu bariyo ogaadhan waa loo isticmaalay meesha ay baridiyo yani meesha xiradeeda markay gasho ayaa la yiraahdaa marka kunnasku waa markay dhacaan oo inaga qarsoomaan wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii cascasa uu daba jeediyo wasubhi subaxdii baan ku dhaartay idaa goortii tanafasa uu soo neefsado oo soo iftiimo
إنه إسقوا قرآن كإلا قول رسول هذا الكيوي رسول كاسو كريم وناكسن أو معناها أبور كيسة iyo muxuu ahay dhaqankiisa iyo si walba uu wanaagsan sharaf leh rasuulkaas oo dii quwwatin awood u saaxiiba allamahu shadiidul quwa dhu mirratin fastawa suuratu najm ilaahi baa ku sifay tabaaraka wa taala nabi maxamed isaga quraanka baro u keeno qalbigiisa ku soo dajiyay markuu ilaahi ka soo qaaday kadib tabaaraka wa taala allamahu shadiidul quwa yani mid xoogiisa awoodiisu daranta dhu mirra oo adag waa طيب عند ذي العرش رسول كاسو الله عرشك وصاحبك أكتيس هذا ومقرب إلهي أكتيس أيا لقده يعني ملائكتك لو كسي توا وملقة إلهي تبارك وتعالى وملائكته أنت ذاك كسو لو يستوى عرشك أكتيس ويهدي لي بمعنى إلهي عرشه وكسر ريا وكأقلويها مرك مكين الرسول كاسو درجة وصاحبه ذو مكانة شرف هي الدرجة هي سرين وصاحبه مطاع ولا أطيعي ثم هل كالو أطيع السماوات كر هل كاس لقاها الله أيا لقى أمر قاتا ملائكتك له أيا كأمر قادته ووركيسا ليلا لما خلاف طيب أمين أولا آمني رسول كاس أولا آمني وربي جيبا آمني وأمان ماشي وقدم بيسي أيو إلهي أماني تبارك وتعالى أو تسكيي ملك الجبريل مركي ملك الجبريل أمانتي سلقا صباحا مركا النبي محمد لوي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم صاحبكين موسى نهان بمجنون مدوالا ولقد رآه صاحب كاسي أركيه جبريل بالأفق جهادي بكو أركي المبين إعاديت وما هو موسى نهان صاحب كاسي على الغيب وحي كركيسة بضنين كب خيل موسى أهان وما هو موسى أهان وحيه يغيبك بقول شيطان هذا الكيما أهان رجيم أو لإريي وإلهي نحريست لغيري فأين حقيبة تذهبون آذي سانمرك حقيبة عقل جنو آذي إن هو ما هو موسى أهان القرآن كني إلا ذكر ونمويه للعالمين أونك اللوانين يوم وانا يوحشاق عقل علي المخلوقات كله عقل علي واون انت طيب لمن عد ايو وانا وياه عالم كيبا لا ودا شيغay kadibna qaar baa la sii sheegay liman cid buu waana u yahay shaa doona oo minkum idin kamida an yastaqima inuu toosnaado ruuxii khayr doona oo inuu toosnaado doonaya inuu maxan hagaago kaasoo quraanku waana u yahay isaga intifaacsanaya waa وما تشاءون دوني ميسان إن أدمحوا أهاي توستان أو هجاكتان دوني ميسان إلا أن يشاء الله إنه الله دونا مويه عليه رب العالمين أونك أورنا ربك أوها إسكالها إمامولي أوتليني مركا أنت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمانه تهي لأن قالوا مركي وحي دين تاي كوكا عن سيدين النبي ليمد وحي اسكو داين إن السمعة كدلان markaasay waxay yiraahdeen wuu waalan yahay Soomaaliya arka soo dhaqmay waa waalan yahay waa majnuun ilaahay marka wuxuu yiri wama saahibukum bimajnuun saahiib waxa iyaga loogu tiiriyay bimaana iyagu ka dhashay waa mid labaad waa bini aadan sidoo kale bini aadan u yahay wama saahibukum bimajnuun rasuulka la idin soo diray saahiibkiina ma ahaanin mid waalan ma sidee buu uga qaatay malakul jibriil wax uga qaatay baa su'aal isweydiin la marka sida xadiiska nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam xadiiska Aisha qeyrkiiba malakul jibriil markuu nabiga waxyiga u keenayo siyaabo kala gedisan buu ugu iimaan jiray laakiin laba goor ayuu suuradii ilaahay malakul jibriil ku abuuray oo dhameystiran buu nabigu ku arkay sallallahu alayhi wasallam mar waxay ahayd Batha magaalada Makka meel kamid ah ayay ahayd oo isagu nabigu jooga sallallahu alayhi wasallam ayuu dhanka bari ka soo qaabilay isaga oo 600 oo garbab malakul jibriil leeyahay suurada ilaahay ku abuuraya marka uu arkay طيب وانا marka suuratu najm lagaga waramayo allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ahmida iyadawa dhulka isagoo joogo arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam واتن halkan lagaga waramayo walaqad ra'ahu wu arkay Muhammad wu arkay hu Jibril bil ufuq jihadi buu ku arkay al mubin ee caday jiha cad buu ku arkayo
asagoo sidii ilaahay uu abuuray buu u yimid oo markaasuu waxyiga u sheegay waa middaa xaaladaas waay mar kalena wuu arkayoo habeenkii nebiga la dheelmay sal alla alay wasalam 7 samo korkooda loo sii qaaday jibriil halkaasuu ku arkay isaga oo 600 oo garbab laho sidii ilaahay u abuuray halkaana waa ku arkay iyadana suuratu najm waa lagu sheegayo walaqad ra'aahu nazlatan ukhra cinda sidrati almuntaha 7 samo marka la dhaafo geedka makhluuqaadku ayna dhaafi karin halkaas markuu joogana markaluu nabigu sallallahu alayhi wasallam si buuxda u arkay malakul jibriil sidaas way macna xadiiska nabiga saa u sharxay sallallahu alayhi wasallam walaqad ra'aahu haqiiqi uu arkay bil ufuq jihadi buu ku arkay al mubin ee cadayd wama huwa musa ahanin muhammad ala al ghayb wahyiga korkiisa ghaybkan hadda waxa laga wadaa wahyiga quraanka bidaniinin oo daad ah muusan ahanin mid ku bakhayla dadka kagama bakhayle uu baahiya deeqsi buu ku yahay وما هو موسى أهان القرآن بقول شيطان هذا الكيما أهان الرجيم أو الإريي إنهم عن السمع لمعزولون إن الشياطين تو قرآن كان لي مادان اسكبر دافع مقل كيسيبا كعرام مركا هذا الشيطان ما صادكو شيكتين ما فأين حقيبات مركا تذهبون آديسانو عقل جينية قرشدينية قرات كينا حقيد آديسان محاد بيني نيسان سيدكو بيني نيسان وحصا وعد إن هو ما هو موسى أهان إلا ذكر وانمو للعالمين إلهي وحوسو دجي أونك إن لوانيو آدمها إن لوانيو جنك إن لوانيو إن لو عقل عليو إن لو شيء مصلحة ضوض ورهال كان أدنتو إذن كنشرتا ورهال كان هل كان لاحظة ووانا إي عقل عليو واحد لمن عد بؤيها يا انتفاع سنة وانا دا قود عالمك وحا انتفاع سنة روحي خير دونا روحي وناك رادينية لمن عد وانا وياها شاء دونا ومنكم إذن كمذا أن يستقيم إنه توصناده طيب هذا وحال الشيء دوني الدين كلية إذن كيناد إيمانك يطاعدي حقي خير كربتان كلية كما حلناه هذا وإنه إلهي إذن لدونه وما تشاءون دوني ميسان إلا أن يشاء الله إنه إلهي إذن لدونه مويه اللي رب العالمين أونك ربي جيساها يعني الروح مركو إيمانك خير كقادنا وإنه يستاهله إنه استاهلنا إلهي بأوك الله مركو وحو قريا أدون كان واستاهله إيمانك وبصينا يا خيرك يا طاعة معنا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله هو أدون كدوني ديس وحي كحرنت هي دوني ده الله لو مثلا الله سجى أدون كي وحلا سجى إنه دوني خيار ليه إرادة يمشي إنه ليه لمن شاء منكم بالله هذا وحلا يدي دوني ده أدون كي يمشي أديسو تإلهي بيدبت الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين مذهب أهل السنة سيدا سؤال أظن كمشي أديس يدوني ديسو إلهي كمان مدح بنانا سيدا سويان طيب إذن كإلهي بيكون حرنت مركا هدو إلهي وحيد للربون بالقاضي نساوي حق سكستو أعديها هدان إلهي وأظن كان للربين أو إلهي السنين وقود ديقين مهل يوي معنا سيدا سويان انت سي سورة تكوير بينك قصة بحني